sawirka ninkan dhalinyarada ay ku muuqdo waxa lagu magacaabaa Jiilaani Aadan Cabdi. ciidamada dawladda ayaa gacanta ku soo dhigay howlgal qaatay saacado badan. waxaa lagu eedeeyey weerarkii khaarijinta ee lagu dilay hiba oo ka mid ahayd ardayda sanadkan ka qalin jebisay dugsiyada sare ee ku yaalla deegaanka ceelasha biyaha. si la mida waxay ka mid ahayd ardaydii maalintii shalay ku wada farxay natiijada wanaagsanna ka keenay ku dhawaaqistii imtixaanka dawladda kaasi oo maalintii shalay lagu dhawaaqay. waxaa halkan yaallo waa tooradii loo isticmaalay khaarijinta hibo taasi oo dadka oo dhan saamaysay geerideeda. 24 saac ee la soo dhaafay baraha bulshada waxaa qabsaday geerida gabadhan yar ee mustaqbalka wanaagsan lahayd. laakiin mididii ayuu dheer meel uga dhaftay uuna uga tagay xataa mididii iyadoo ka taagan uga tagay. inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'taa wa kullu shay'in 'indahu bimiqdaar. halkan waxaa nolosheedii maanta ku soo gabagaboobay marxuumadda ayaa halkan lagu aasay waxaana ka soo qayb galay aaskeeda maamulka iskuulka ay dhiganaysay macallimiinta qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ardaydii wax la soo barteen. waxay tagtay suuqa ceelasha way soo adeegatay adeegii markay soo qaadatay soo laabatay xaafadii ku soo socotay marka iyadoo xaafadda ku soo dhowli soo gaarin markay jidka ka soo leexad soo maraysa meeshaas yaa kulley ninku meesha uga soo baxay laakiin mididii ayuu dheer meel uga dhaftay uuna uga tagay xataa mididii iyadoo ka taagan uga tagay. inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'taa wa kullu shay'in 'indahu bimiqdaar. arin qadarna dhacday marka insha Allah gabadhaasaan tacsiid tiiraan ilaahay u direena ilaahay anaga dhan naga wada baxday ilaahay u naxariisto waxaan u ahaa gabadh abti ilaahay jannatul firdaws ilaahay ka waraabiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa annagoo ah iskuulaadka Lafoole ee ka dhisan ceelasha biyaha waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa Allah u naxariistee hibo qaasin maxamed Allah u naxariistee u tacsiyeynaynaa oo gacanka xaqdan ay dishay shalay lagu dilay ceelasha biyaha 10 saac Allah u naxariisto waxaan u tacsiyeynaynaa ehelka waalidiinta macallimiinta ardayda iyo guud ahaan dadka deegaanka ceelasha ayaan uga tacsiyeynaynaa arintaasi. subhanahu wa ta'ala inuu naxariis waasac inuu siiyo qabrigadan Allah waasiciyo bahda waxbarashada iyo ehelkeeda iyo qaraabada iyo waalidka ay ka tagtana ilaahay sabiir iimaan Allah ka siiyo annagoo aan ka mid nahay bahda waxbarashada ay ka mid yihiin. shalay iyadoo ka imaaday suuqa ee xaafadda u soo socoto ayaa gadaal loogu imaaday qoortaa loogu dhuftay mindi iyo keliyaasha 4 meel ay ugu dhacday.